السلام عليكم. qiimeynta qofka ha moodin qofku in uu dhasho isagoo la tixgeliyo ama la jecel yahay laakiin waa wax la kasbado lana gaaro marka loo maro dadaal iyo daal fara badan haddaba walaalkaygiiyow isbar inaad dhageysato qofka kula hadlaya welibana baro habka wax loo dhageysto inta aadan baran habka loo hadlo badi dhoola cadeynta iyo waji furnaanta si dhab iyo daacadnimo ku jirto u ammaan qofkii u qalma adigoo ka maran laba wajiilanimada ka fogow muranka iyo dooda badan waayo waa bilowga canaadka colaada iyo kala go'ida ula dhaqan dadka oo dhan sida aad jeceshahay in lagula dhaqmo adiga iska yaree canaanta una cududaaro qofkii kugu gafaa kugu qaldama iska ilaali carrada sidee doonto ha ahaatee waayo waa fal shaydaan la soo caafimaadkaaga iyo aqligaaga aad bay ugu daran tahay badi salaantu walaaltinimada ayay xoojisaa haddaba walaalkaygiiyow ka fogow balaayisiga iyo hogsheegadka rajada iyo yidadiiladana badi waayo rajada oo la badiyo waxay ku noqonaysaa taageero iyo xoog aad ku dhaafto waqtiyada adag ee ku soo wajaho nolosha والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.